السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء جالك مالمها waxaan idin la wadaagaynaa qiso dhex martay laba wiil oo saaxiibo ah balse intaan u gudagelin ka hor haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha fadlan subscribe dheh gabanarka riix si ku soo gaaraan waxyaabo cusub aan soo dhigi doono. Laba wiil oo saaxiibo ah ayaa waxay wada dhigan jireen jaamacad waxayna ka baran jireen kulliyadda dhaqaalaha aad ay isku jeclaayeen waxaana u dhaxaysay nafta mid ka mid ah labadooda wuxuu ku noolaa daruuf aad u adag ma haysanin wax dhaqaale ah halka midka kalena uu ku noolaa nolol aad u heer sareysa. wiilkan faqiirka ah ayaa wuxuu awoodi waayay inuu iska bixiyo lacagta jaamacadda wuxuuna go'aansaday inuu jaamacadda isaga tago. wuxuu u bandhigay saaxiibkiis oo ku yiri inuu dhibaato ay haysato mana awoodin inaan sii wado jaamacadda waxaan go'aansaday inaan iska dhaafo waxbarashada. wiilkii ayaa ku yiri bal isu wiilkani ayaa wuxuu u tagay aabihiis wuxuuna ku yiri aabo wiilkan saaxiibkan ahni waxa haysta dhibaato mana awoodo inuu iska bixiyo lacagta jaamacadda sidaa darteed waxaan ka codsanayaa inaad ka bixiso lacagta jaamacadda. aabihii ayaa ku yiri bal ii soo qiimee lacagta laga rabo jaamacadda dhamaanteed. kadib lacagtii ayaa loo soo qiimeeyay wuxuuna u qoray jeeg oona ku leeyahay maamulka jaamacadda ka doonta bangiga. wiilkii jaamacaddii ayuu sii watay waana u dhammaystay. markii jaamacadda dhameeyeen ayay labadii wiil mid waliba wuxuu raadsaday shaqo. wiilkan faqiirka ayaa soo baxay wuxuuna bilaabay ganacsi hase ahaatee ganacsiga ayaa alla u barkeeyay wuxuu noqday nin hanti leh. muddo kadib wiilkii saaxiibka ayna hantidii lahaa ayaa waxaa dhintay aabihiis. wiilkii markii uu dhintay aabihiis ayuu wuxuu ka dhaxlay hantidii markii uu ka dhaxlay ayuu wuxuu bilaabay inuu ku tumanayo meelaan wanaagsan ku bixinayo. muddo kadib lacagtii ayuu iska dhameeyay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa ninkii saaxiibkiisa wuxuu ku fikiray inuu bil soo fiiriyo ninkii abaalka u galay isla markaana u mahadceliyo oo uu soo baxay wuxuuna soo raayay saaxiibkiis balse markii uu yimid ayuu wuxuu ku arkay xaalad aan wanaagsaneyn. wuxuu arkay ninkii saaxiibkiisa oo tumanayo naagana ay dhex fadhiyaan ma uusan salaamin balse meeshiisa ayuu ka laabtay wuuna iska tegay. muddo kadib ninkii hantidii ayaa ka dhamaatay wuxuuna galay duruuf adag isaga oo yaaban oo aan garanayn meel wax ka keeno ayaa maalin waxaa lagu yidhi ninyahow ninkii aad saaxiibka ahaydeen oo aad soo gacan qabatay maanta wuxuu noqday nin lacag leh ee haddii aad u tegi leed waxaa laga yaabaa inuu kusoo saacidi lahaa. wiilkii uu soo baxay wuxuuna soo raayay saaxiibkiis. markii uu yimid goobtii shaqada ayaa waxaa albaab ku celiyay waardiyihii kaasuu wuxuu ku yidhi ninyahow waxaan rabaa ninka kambanigan iskale waa nin walaalkay oo saaxiibkeeya. waardiyihii ayaa u tegay wiilkii kaasuu wuxuu ku yidhi wiil ayaa bannaan ku taagan wuxuu ku yidhi soo daa waa uu soo galay. markii uu xafiiska usoo galay ayuu wuxuu sugayay in la soo dhaweeyo oo loo istaago balse wax dareena looma muujinin oo shaqadii ayaa la iska sii watay. meeshii ayuu fadhiistay. markuu muddo fadhiyay ayuu wuxuu ku yidhi ninyahow maanta duruuf ayaa hayso waan kuu soo baahday waxaana kaa rabaa in ay saacaddo wax la qabato. wiilkii ayaa ku yidhi saaxiibkiisa ah ninyahow waxba kuuma qaban karo waxaan arrintaad ka qaban karna ma jirto. waa uu yaabay markaasuu wuxuu ku yidhi ninyahow sooma ogdin abaal kuu galay oo hadda goran kusoo gacan qabtay. markaasuu wuxuu bilaabay inuu ku abaal sheeganayo balse wax jawaaba lama siinin oo waxaa lagu yidhi waxba kuuma qaban karo oo uu iska soo tegay. isaga oo meel socdo ayuu wuxuu ku fikiray inuu isdilo naftana isdhaafsiiyo. markaas ayuu xirig soo qaatay geed ayuu ku xirtay isagoo isdili rabo ayaa waxaa u yimid laba nin oo socoto iyo haweeney. markaasaa waxaa lagu yidhi ninyahow maxaa kugu dhacay. wuxuu yidhi waan duruufaysanahay nolosha ay u adkaatay waxaan ifka ka qabay hal saaxiib oo aan soo wada noolaan jirnay waxaan aaminsanaa inuu maanta i garab qabanayo oo garabkayga istaagayo balse ma aanan ka helin booskii aan ka sugayay. sidaa darteed ma doonay inaan sii noolaado waxaan rabaa inaan noloshiis dhaafsiiyo. nimankii ayaa ku yidhaahday haweeneydii ninyahow bal ka waran haddii aad dhibaataysan tahay waxaan dareemayaa inaad tahay ruux aqoon leh ka waran haddii aan wada shaqaysano oo aad noo shaqayso hanti fara badan ayaan haynaa haddii aad noogu shaqayso maxaad ka qabtaa ood faa'iido ka soo baxdana aad qaadato 30%. wuxuu yidhi waxba kama qabo. sidii ayaa lacagtii loogu dhiibay mashruuc ayuu bilaabay ganacsi ayuu galay wax soo saar badan ayuu sameeyay. muddo gaaban wuxuu ku soo saaray hanti fara badan wuxuu noqday nin lacag leh. muddo kadib ayaa haweeneydii shaqada u dhiibatay ayaa waxay u keentay gabar ay dhashay kaasay waxay ku tiri waxaan rabaa inaad gabadheeda ii shaqaalaysiiso. sidii ayuu gabadhii shaqo ku siiyey. muddo markii gabadhii shaqaysay ayay gabadhii isfahmeen waxayna wada go'aansadeen inay isguursadaan. kadib wiilkii wuxuu ka codsaday haweeneydii in gabadhan loo guuriyo lagu daro. haweeneydii ayaa ku waafaqday. waxaa la diyaariyay xaflad aad u weyn oo lagu yiri dadkii deganaa goobtaas dhan. markaasuu wuxuu yidhi dadkoo dhan way casuuman yihiin ilaa ninkii saaxiibkay maahane oo ma doonayo ninkaas inuu kasoo qayb galo xafladeeda. sidii ayaa xafladii lagu qabtay. maalinkii xafladii markii la gaaray
ayaa ninkii saaxiibkiis wuxuu arkay ninkii uu dhex fadhiyo meeshii. aad ayuu carooday, markaasuu wuxuu qabsaday mikrofonka. wuxuu ku yidhi niyahow, maxaa ku keenay xafladayda? soo ma ogid inaad i xumaysay ood meel iga tagtay? maxaad u timid halkan? noloshiidii ayaad shalay wax ka qaban weysay. waxaan ku sigtay inaan isdilo, balse alle ayaa i badbaadiyey oo dad ii soo diray. maanta markii aan nolol fiican helay oo noloshiida wax ka bedelay, miyaad haddana ii timid oo rabtaa inaad iga baabi'iso noloshan? maxaad iga rabtaa niyo? iska keedaa. kaasuu ku yidhi ninkii saaxiibkiisa, ma ii ogolaan kartaa mikrofonka? kaasaa waxaa lu yidhi mikrofonkii. wuxuu ku yidhi waa runta, abaal ayaad ii gashay, noloshiida ka soo qayb qaadatay, waana ii timid adigoo duruufeysan, balse maalinkaa kuma aan jawaabin. sababtuna waxay tahay maalin ayaan ku soo raadiyey, waxaana ku imid adigu ku jirto xaalad adag oo aan wanaagsanayn. kuma aan salaamin, mana kuu jawaabin, balse waan kaa soo naqday. markii ay kaasoo dhammaato xoolihii ayaad ii timid adigoo doonayso inaad noloshaadii hore ku noqoto, balse waxaan ku fikiray haddii aan sidan kugu sii xoolo inaadan waxba qabsanaynin. waxaan kuu sheegayaa, labadii nin ee ku timid iyo haweenaydii aniga ayaa kuu soo diray. lacagtaad ku shaqaynaysane aniga ayaa iska leh. haweenayda lacagta kuu dhiibatay waa hooyaday. gabadha aad doonaysa maanta inaad guursatana waa walaashay. lacagtaan aad ku shaqaysane aniga ayaa soo dhiibay, waxaana ku amray inaad lacagtaa ku shaqayso, faa'iida ka soo baxdana 30% aad qaadato si aad naftaada wax ugu dabarto. maalinkaa waan awooday in lacag ku siiyo, balse haddii aan ku siin lahaa waxaad u noqon lahayd meeshii aad ka timid. noloshaadan isbeddel kuma aysan dhici lahayn, balse waxaan ku fikiri inaan ku dareensiiyo inay muhiim tahay inaad qabsato, balse aysan ahayn nolosha in wax lagu siiyo mar waliba. qisadan halkaas ayay ku eg tahay. qisadan waxaan ka faa'iideynaa haddii aad doonayso inaad qof wax ka badasho noloshiisa, fadlan ha isku dayin inaad xoolaa dhaqaalo siiso meel aan ku hayso, balse waxaa isku daydaa inaad u abuurto mashruuc si qofkaasi waxtar u yeesho mustaqbalkiisana wax ugu bedelo.